siri alaha in la xasuusiyo wax laga yiraahdo way u baahan tahay waxa arkay dadkii ka tacsiyeynayay waxa kamid ahaa afayeenka ururka shabaab cali dheere oo dadkii inay ka xun yihiin iyo tacsiye diray runtii waa la yaabo waa isweydiiyeyo waxaan raadey dadku muslim yihiin iyaga waa muslimkii na ka dhigay Soomaalida hay maxay dhahay tacsiye tirayaan shacabkii masaakiinta Makal Mukarrama u dambeysay soo dhowr iyo 30 maalay ku dirin inta dhaawaca marka laga soo tago shaamu soo boqolaal kuma dhimanin tiyaatarka dad kontomeeyo ku dhow soo kuma dhimanin dadkan Soomaalida muslim ma aha miya jirkoodu gubanayo guryaha lagu duminayo oo hantidoodii la baabi'inayo dad la laayay iyo inta dhaawaca haddii la muslimiinta halka konton baa kaga dhimatay sanadkan intuu bilowday ama sanadkan iyo sanadkii hore boqolaal bay iyagu muslimkii Soomaalida ka dileen kuwan muslim dhiig le ma aha miya kuwan muslimka loo barooranayo in la ilaaliyo dhiigoodu yahay kamid ma aha miya mise kan New Zealand ee fogna waa loo tacsiyeen ka daris kale ee Soomaalida ana waa la baabi'in maxay u kala duwan tahay dadka muslimka ah dad magac Soomaaliya muslim ku baabi'isay haddana magac gaal ku baabi'isay soo dilkii baabi'intii un ma haddii laga hadlayo masaajid yaa masaajid dadka ku leeyin jiro qarxin jiray waliba jumca shaqada gacmo yaa masaajid salaad casar jumca isagoo rukuucsan dilay isla jumca dhaweyto boosaaso masaajid bartanka yaa ku dilay nin ugaas dadka yaa masaajidka markuu galay ka baxaya laaya iyadoo jumcooyin la tukanaya xamar masaajid kamid ah yaa qarxiyay iyaga ururkooda ma ahayn hadday daacad ka tahay oo diin iyo ilaahay dartii ka tahay dad muslimi iyo dhiigoodii inuu qaaliya maxay iyagu masaajidii iyo irdahoodii ugu laynayaan maxay masaajidda jumcooyinku u qarxinayaan maxay goobahoodii ganacsiga iyo suuqyadoodii ugu baabiinayaan u halaagayaan masa mudan tahay warkaas oo kaleeto in tacsi diin iyo daacadnimo loo qaato waxaan dhiraa dad Soomaaliyeed iyo ururka iyo inta la midka atoona inay hadda dhacdooyinkan ka tacsiyeeyaan gaaraan ururadan sidan oo kaleeta ka tacsiyeeyaan waxaan filayaa tacsi beena way adoo markaad intaad ka tacsiyeynayso boqolaab ka disho muslina oo masaakiin maxaad iska fadhiya kuwa suuq iska fadhiya kuwa gaadiid iyo gawaari iska saara kuwa jidad iska maraya marka adigu ma ka dhigto haddana ku faanto oo haysato janno inaad ku galayso kii kala laaya maxaa ka galay adiga adba waad laynaysaa intiisa ka baarada u geysanayay waxaan isleeyahay inay dib u xisaabtamaan bay u baahan tahay inay ka dhaxday run ka tahay inay muslim dhiiggii daatay ka xun yihiin kanay maalin walba qubayaan inay joojiyaan ilaan dadkii waa dhammeeyeen qaraxyadii bayna ku dhammaadeen waxaa laga yaabaa qof iyo laba dowladaan u socon oo dagaal naga dhexeeyo dee 2 iyo 5 haddaad u socotay 200 ee kale maxaa u dishay waxaa wajida fariinta inaan iraahdo haddii ay ka tahay muslim dhiiggii inay ka danqanayaan oo dad muslima oo la dilay oo dulmi lagu laayay ka xumaanayaan dee xumaantu iyo ka danqashadu kow waxay ka bilaabataa intaadan cid kale uga gurmanin adiga dhibkaaga in laga nabad galo almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadihi inay noqdaan bay u baahan yihiin ilaahi subxana wataala waxaan ka baryayaa mar kale dadka muslimiinta ee meesha dulmiga loogu laayay inuu shahaada uga dhigo dadkoodina sabri iyo iimaan ka siiyo iyagana ilaahi subxaanahu wa tacaala wax ka khayroon ugu bedelo intaasaan kuubaya kelimadeyda asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu